kulanti waxaan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada durdurka wararka waa sabti taariikhdu ku aasteysan tahay 22 bisha 2 ee 2025 madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo maanta si cad u taageeray howlgalka Puntland ee ka dhanka ah kooxda Daesh isaga oo markaasi fariin toos ahna u diray dowlad goboleedka Puntland isla markaana waxa uu ku dhawaaqay go'aan culus oo markaasi ku aadan dagaalka ay Puntland kula jirto kooxda Daesh madaxweynaha ma tagi doona furimaha dagaalka buuraha Almiskaad halkan ayaan sidoo kale idinku soo gudbin doonaa dhanka kale waxaan idin soo gudbin doonaa dowladda federaalka Soomaaliya oo markaasi baahisay sawirro waan idin la wadaagi doonaa ku aadan gaadiid ay lahaayeen ama ay wateen kooxda al-shabaab oo markaasi lagu burburiyay dagaalkii ay markaasi ku qaadeen deegaanka Cali Axmed waxaan idin soo gudbin doonaa sawirro markaasi muujinaya gaadiid fara badan oo kuwa gaashaaman ah oo ay wateen kooxdii weerarka soo qaaday oo ciidanka ay markaasi gubeen oo dab ay markaasi qabadsiiyeen dowladda ayaa sawirradaasi baahisay waxayna sheegtay inay dishay horjoogayaal sarsare oo ka tirsan kooxda al-shabaab intaan guda galin waxaan ka codsanaynaa haddii ay tahay markii kuugu horeysayna soo booqatay in subscribe-kan oo taabato muuqaalkana like aa saarto si dad badan uu gaaro aynu ku bilownaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo maanta khudbad ka jeedinayay furitaanka kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay arrimo badan oo ku aadan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo midda ammaanka Xasan Sheekh Maxmuud ayaa soo dhaweeyay oo taageeray dagaalka ay ciidamada Puntland ay markaasi kula jiraan kooxda Daesh ee saldhigyada ka sameystay buuraha ee gobolka Bari waxa uu cadeeyay madaxweynaha in ay garab taagan yihiin dadka reer Puntland ee dagaalka kula jira kooxda Daesh madaxweyne Xasan Sheekh Maxmuud ayaa sheegay in kooxda Daesh dhibaato badan ay ku hayaan dadka reer Puntland waxa uu sidoo kale xusay in kooxdaasi caalamka ay markaasi tusaysay in ay wali awood leeyihiin ayna joogaan qayb ka mid ah Soomaaliya waxaan garab taaganahay ciidamada maamul goboleedka Puntland ee dagaalka kula jira Daesh ee sida geesinimada leh ugu bareeray in kooxda Daesh ay ka xureeyaan deegaanadooda dagaalka Puntland ay kula jirto Daesh waa dagaal xaq ah oo shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan waajib ay ku tahay in ay garab istaagaan ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxmuud madaxweyne Xasan Sheekh ayaana sheegay in dawladdiisu waajib ka saaran tahay in ay garab istaagaan walaalaha Puntland ee dagaalka kula jira Daesh waxa uu madaxweynuhu xusay in dhawaan markaasi uu magacaabi doono guddi ka shaqeeya garab istaaga iyo taakulaynta ciidamada Puntland ee dagaalka kula jira Daesh hadalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxmuud ayaa ku soo aadaya xilli marar badan dawladdu ay sheegtay in Puntland ay markaasi ku taageerayaan dagaalka ay kula jiraan Daesh waxayna Puntland shaacisay dhankeeda in ay jirin taageero ay markaasi ka helaan dhinaca dawladda marka laga soo tago hadal kaliya waa hadaladii ay markaasi isweydaarsadeen Puntland iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya ee ku aadana garab istaaga iyo sidoo kale arinta ku aadan doorkeeda dowladda federaalka waxa ay horay markaasi u sheegtay in Puntland ay markaasi iyadu diidan tahay in ay ka taageeraan dhinaca markaasi dhaawacyada markaasi la soo qaadayo iyo sidoo kale hubka ciidanka markaasi agabyada ay u baahan yihiin lagu saacidi lahaa waxaana wasiir fiqi oo wasiirka arrimaha dibadda oo arintaasi ka hadlayna uu sheegay in madaxweyne Deni uu si cad markaasi u diiday arintaasi cadeymaheedana ay markaasi hayaan dhanka kale Puntland wasiirkeeda warfaafinta oo hadlay waxa uu sheegay in waxba kama jiraan hadalkaasi uu yahay Puntlandna markasta ay diyaar u tahay in markaasi ama ay soo dhaweynayso cid walba oo garab istaagayso waxaana markaasi uu sheegay in madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni toddobaadyo ka hor uu si cad u sheegay inay soo dhaweynayaan isagoo ku sugan markaasi magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari cid kasta oo garab markaasi siinaysa ciidanka difaaca ee markaasi Puntland waxa uu sheegay inay soo dhaweynayaan hadalkan Xasan Sheekh Maxmuud ayaa ku soo aadaya xilli labada dhinacba markaasi ay isu jawaabeen 24 saac u dambeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxmuud waxa hadda uu yiri guddi ayaan arintaasi markaa u saareenaa oo xukuumadda ayaa markaasi guddigaasi u saarayso waxaana Puntland ay kala shaqeyn doonaan howlgalka markaasi ka dhanka ah ee kooxda Daesh su'aasha la isweydiinayo waxay tahay howlgalkan maanta ma bilaaban muddo 2 bilood ka badan ayuu socdaa maxay tahay sababta xilligan ay dawladda u sameynayso guddi oo horay ay markaasi ugu magacaabi weyday sidoo kale su'aalaha la isweydiinayo waxay tahay dawladda federaalka Soomaaliya
maxay markaasi tallaabo markaasi muuqato oo shacabka Soomaaliyeed ay arkaan ay markaasi u sameyn waayaan si ay ugu cadaato markaasi bulshada Soomaaliyeed cidda markaasi khaldan waa su'aalaha inta badan bulshada haatan ay isweydiinayaan balse haatan madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud waxaa la filayaa in uu markaasi saraakiil iyo jeneraalo uu u diro buraha Calmiskaad oo ugu horeeyo Generaal Odawa oo ah taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sidoo kale waxaa macquul ah in madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud qudhiisa uu tago oo tuutaha uu xirto furimaha hore ee buraha Calmiskaad si uu u muujiyo ama uu uga dhabeeyo hadalkiisii ahaa in uu garab taagan yahay dowladdiisuna ay garab taagan tahay howlgalka kooxda Daacish markaasi looga saarayo loogana sifeynayo buuraleyda Calmiskaad ee gobolka Bari waxaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu markaasi si cad haatan u qeexay in dowladdiisu ay garab buuxa u tahay ciidanka markaasi difaaca ee Puntland dhanka kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgallo xoogan waxa 48 saac ee u dambeysay ay ka wadaan qaybo kamid ah ee gobolka Shabeellaha Dhexe ee dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaana markaasi lagu soo waramayaa in ay wadaan howlgal sifeyn ah oo ay ku raad joogaan kooxihii weerarka ku soo qaaday qaybo kamid ah ee deegaanada markaasi gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan deegaanka Cali Axmed oo uu ka dhacay dagaal aad loogu riiqmay oo labada dhinacba khasaare xoogan uu soo kala gaaray kaas oo u dhaxeeyay ciidanka dadka deegaanka ah ee loo yaqaan macwiisleyda iyo ciidanka xoogga dalka oo isku dhinac ah iyo sidoo kale kooxda Al-Shabaab dowladda federaalka Soomaaliya war ay ka soo saartay arintaasi waxaana markaasi ay sheegtay in jab xoogan ay ku gaarsiisay kooxda Al-Shabaab isla markaana ay tiro horjoogayaal ay markaasi uga dishay dagaalkii ka dhacay deegaanka Cali Axmed Al-Shabaab qudhooda guul ay ka sheegteen dagaalkaas ma jirto laakiin ila madax bannaan oo labada dhinacba ka madax bannaan oo haatan aan soo xigeynayno oo cadeynayso khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaas ee labada dhinac soo kala gaaray marka laga soo tago sheegashooyinka labada dhinac balse waxaa jira in dowladda federaalka Soomaaliya ay haatan soo bandhigtay sawirro muujinaya waa kuwa hortiina ka muuqdo gaadiid gaashaaman oo ay wateen kooxda Al-Shabaab oo ay ku soo weerareen deegaanka Cali Axmed waxayna sheegtay in gaadiidkaasi qaybtoodna ay soo furteen iyagoo badqaba qaybta kalena ay markaasi ay gubeen waxayna sheegeen in ay dileen dagaalgeliyihii ugu sareeyay kooxda markaasi qaybta ka ahaa dagaalkii kooxda Al-Shabaab ay ku soo qaadeen deegaanka Cali Axmed waxaana markaasi ay sheegeen in deegaankaasi oo lagu magacaabo Xasan Gurey ay markaasi ku dhintay dagaalkii ka dhacay deegaanka Cali Axmed dowladda federaalku waxay sheegtay dagaalkaasi inay ka gaartay guul aad u weyn sidoo kale saraakiil markaasi u hadashay ciidanka xoogga dalka iyo ciidanka macwiisleydaba waxay sheegeen in dagaalkaasi ay ku adkaadeen jab xooganna ay gaarsiiyeen kooxihii weerarka soo qaaday haatanna ay ku raad joogaan firxadka kooxdii Al-Shabaabka ahayd ee markaasi soo weeraray deegaanka Cali Axmed haddii aad nala soo gaartay ilaa dhammaadka muuqaalkan waxaan kaa codsanaynaa in subscribe-ka noo taabato muuqaalkanna like aad markaasi noo saarto si uu u gaaro asxaab badan oo sida adiga camala